Soomaaliya ku nool degmada Tiondo gobolka Libomba ayaa si aad u soo dhaweeyay madrasada laga hirgeliyay degmada Tiondo ayagoo sheegay inay soo dhaweeyaan isla markaana ay si aad ugu faraxsan yihiin. Maxamed Cabdullaahi wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee muddo ku soo degmada Tiondo wuxuuna sheegay in tani ay tahay horumar weyn oo la sameeyay. Maxamed Cabdullaahi waxa uu sheegay in uu rajaynayo in madrasada ay ka faa'iideysan doonaan ardayda aad u fara badan wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in la garab istaago ardayda u baahan in wax bartaan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Marka hore ma santiin Soomaali Jannal tan kale madrasadan Tiondo waa mid waqti loo baahnay ka hirgashay magaalada Tiondo in muddo ayaan joogay wax madrasad iyo wax oo meel diin lagu bartay meel labada isqabsada lagu kala saaray iyo meel maamul intaba ma lahayn. Alhamdulillah hadda wax walba way soo hagaagayaan madrasadii waan ku faraxsanahay. howlaha kaliya dhalinyarada iyo ilmaha uma haydo dadku waaweyn meel ay isugu tagaan ama meel laga maamul karo ay naqatay. Sheekh Bashiir gudoomiyaha madrasada ayaa waxa uu sheegay in waqti badan ay soo qaadatay in madrasada furo isla markaana ay ka fikiriyeen in madrasada halkaan ay ka furaan. Sheekh Bashiir waxa uu sheegay in xilligan la sameeyo horumar weyn isagoo sheegay in dad badan oo gaala ah ay diinta ku soo biiriyaan wuxuuna sheegay in uu sameeyeen maalin lagu magac daray dadkii ninsanaa oo soo hanuunay. madrasadani waxay soo martay marxalado fara badan ayay soo martay. marxalad cadan bay ahayd oo meeshaan kama jirin madrasad. marxaladna fikir baa ka jiray iyo sidii madrasad loo furi lahaa. marxaladna waa marxaladan hadda ay marayso. madrasadan muddadii aan furnay oo muddadaa iska kooban aan sheegayo waxaa horta ka horreysay inaan guddi dacwo dhisno. guddiga madrasadan furay guddi dacwo. guddiga dacwada aan dhisnay wuxuu noqday guddi magaalada wax badan ka qabtay uu noqday. waxyaabihii ugu horreeyay Soomaalida kulamo inuu isugu keeno ayuu bilaabay. ay ka mid tahay maalmaha ciidda Soomaalidu inay meel ku wada qadeeyaan. ay ka mid tahay in jumcooyinka muxaadaro loo jeediyo Soomaalida. mataqaana ay ka mid tahay in khilaafaadka Soomaalida la xalliyo. ay ka mid tahay mataqaana in wax kasta bulshada u baahan tahay guddigaas inay qabtaan. guddiga qabashadii ay qabanayeen madrasadan ay fureen. madrasadan intii gurigan madrasada loo kireeyay oo madrasadan la furay kulamo badan bay Soomaalidu halkan isugu yimaadeen oo aan la dhihi karo ilaa iyo 7-8 ayay dhan tahay oo lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya. almuhim aakhirkii ugu dambeeyay alxamdulillah waxaa suurta gashay in madrasadan dhexdeeda lagu yagleelay lagaga wada hadlay sidii Soomaalida Tiondo oo 13 sano aan wax maamul lahayn waligood aan wax maamul samaysanin. Abdullaahi Maxamed TV-ga caalamiga Soomaali Jannal South Africa.